taliyaha ciidanka debdemiska ee Somaliland agaasimaha guud ee ciidanka debdemiska ayaa saaka aroornimadii hore safar shaqo ku soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana mas'uuliyiinta xarunta debdemiska ee magaalada Burco ku soo dhaweeyay saraakiisha kala duwan ee ciidanka debdemiska ee magaalada Burco ujeedka safarkan ayaa ahaa sidii loo hirgelin lahaa hanaan cusub oo biyaha ay si fudud ugu heli karaan ciidanka debdemiska xilliyada ay ku guda jiraan baqtiinta aafada dabka taliyaha guud ee ciidanka debdemiska Axmed Xasan Sawaaxili iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka debdemiska ayaa kulan la qaatay maarayaha wakaalada biyaha Burco intaasi kadibna waxay kormeer ku tageen goobaha loo asteeyay in biyaha si fudud ay uga qaataan ciidanka debdemisku xilliyada ay ku guda jiraan hawlaha shaqo waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay mas'uuliyiinta taliyaha ciidanka debdemiska ee magaalada Burco Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi Talaabo maarayaha wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud waxa uu dhankiisa ballan qaaday in si dhow ay ula shaqeyn doonaan ciidanka debdemiska ee magaalada Burco maadaama gobolkii koowaad lagu tijaabiyay anana waxaan filaynaa insha Allah inaan ka soo bixi doono tijaabada si wanaagsan waliba ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka debdemiska Somaliland Axmed Xasan Sawaaxili iyo agaasimaha guud ee ciidanka debdemiska Cabdiqaadir Cumar Xaashi oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeedka safarkan iyagoo bulshada ugu baaqay inay gacan siiyaan ciidanka debdemiska hawshay gurmadka oo adkaysateena aad iyo aad baan u mahadinaynaa waxaan rajaynaynaa intaay ka badan inaan dadka u qabanno marka maanta waxaan joognaa meesheenii xarunteena joognaa halkan wadinka arkeenka dad baa degan dhinacyada ka degan madaxda ciidamada iyo meeyarkii baan soo keenay marka iyaga Soomaaliya waxaa ujeedada ahayd in meel loo raro meeshii waa loo helay marka raritaankii wixiina iyaga dhameynaya waxa kale ugu bushaareynaya waxayna Burco ugu bushaareynaya meelkana ka ballan qaaday waxa inaan hydrate systemkii u sameeyo Burco hydrate waa meelaha kaalmaha biyaha laga qaato ma kaalintii gaarintu tago dusha laga shubay ma waa kaalmo lagu sameeyo meelaha muhiimka dacadaasho kale petrol stationada kale marka gaarigan uu tago biyaha yar oo sito ay ku bilaabeen laakiin biyo soo gashay marka ilaa hadii week dabka la dagaalamayo baabuurta iska dhaaqay maayaan waxaan joojinaa baabuurtii waydu daba carrijinay waxaan joojinaa baabuurtii marka ka dhamaado dib loo noqon jiray marka dad cadool dagaalmay nagu nahay hadii naano marka rasaasu naga dhamaato waan xiriir ku noqonaa biyaha soo baxsano taasi dabdeys ma marka international standard adduunka ku shaqeeyaan ayaynu Burco ku bilaabina sababta ugu bilaabina waxa weeyaan Burco meel oo biyo leedahay in waan soo aragnay maareeyay biyaha halkan markaan ka tagno iyaga u tagnaa marka xabadan soo sameeynay ayaan ku tijaabin doonaa marka xiga waxa anaga farxad noo ah inaanu ka faa'iideyno saddex arrimood oo run ahaantii ay maanta Burco marka la eego dhinaca badbaadada iyo horumarinta debdemiska Somaliland ay magaalooyinka kale kaga hormartay waa marka koowaad waxaynu ka faa'iideynaynaa khibradda iyo aqoonta taliya Sawaaxili oo ah in uu soo hindisay maadaama Burco laga helayo biyo la imaamo oo joogta in fire hydrant system waxa la yiraahdo ee gaadiidka debdemisku meeshu istaagaba uu ku talaalanayo kadibna uu halka biyaha ka soo nuuganayo in Burco lagu bilaabo sidii Somaliland loogu dhawaaqayna aanu halkan uga dhawaaqayna in Burco maanta fire hydrant systemkii laga bilaabayo bartan insha Allah taala hanaankani cusub ee biyaha ayaa wax weyn ka tari doona ka hortagida khasaaraha dabka Shucayb Xasan Cismaan Shucayb Kingish Kalsan TV magaalada Burco